السلام عليكم saaxiibayaal kusoo dhawaada waa koobkii Carabao Cup-ka finalka ah ee Manchester City iyo Arsenal ay wada kulmi doonaan galabtan markay tahay saacada 10 saac iyo bar dhanka iyo London ama dhanka geeska Afrika markay tahay 1 saac iyo bar ayay wada ciyaari doonaan labadan kooxood ee Manchester City iyo Arsenal. Saaxiibayaal macluumaad dheeri ah ayaan idin haya ku saabsan ciyaartan. Ugu horreyn saaxiibayaal intaan guda galin subscribe-ka, like iyo share-tan cimaamada aad iyo mahadsantiin. 9 sano ka hor ayay wada qaadeen labada macallin Pep Guardiola iyo Mikel Arteta koobkan Carabao Cup-ka. Xilgaas uu Arsene Wenger markaas uu Arsenal uu hayay macallinka laakiin uu kasii retire garowa uu kasii dhaqaaqay. Laakiin Arsenal ayaa ku guuleysatay 2020 ayay ku guuleysatay xilligii caabuqii koronihii ahaayay oo xilligaas taageerayaasha Arsenal iyo shacab weynaheeda aysan ka soo qayb galin oo macnaha oo la saaray xilligaas mamnuuc in macnaha la isku imaado ciyaaro sidaas oo kale ah finalka. Galabta ama caaba Arsenal taageerayaasheeda war farxad leh ayaa ka soo yeerayo. Way faraxsan yihiin maadaama ay arkayaan kooxdooda oo koob qaadayso. Mugtahay Arsenal waxaa lagu maadsadaa taageerayaasheeda ama Arsenal markay yihiin idinku maxaa qaadeen koob goorma idinku dambeysay koob weyn oo qaada goorma idinku dambeysay camal ayaa lagu maadsadaa marka caawa marka waa la arki doonaa haddii Arsenal koornooyinkii ama goolhayaha la ciriiri iyo sida ay ku dhaliyaanbo ya Arsenal waxaa waa hal gool daga xirta bas way daafaca ku galaysaa ama waxaa way kugu jiidaysaa marka Arsenal ay labada mid kala dooranaysaa labada goolhayaha Kepa ama David Raya laakiin Kepa tartankan markasta isaga ayaa qabanayay oo Mikel Arteta wuxuu ku kalsoon yahay in uu macnaha ku soo bilaabo ama sida Kai Havertz uu ku soo bilaabo ayaa dhici karta marka Mikel Arteta ayaa horaan buu sheegay wuxuu dhaanay waa ku kalsoonahay Kepa waa goolhaye fiican waa u dhahay waxa weeyaan tartanka xitaa isaga ayaa noo soo hayay sidoo kalena Bernardo Silva iyo Ryan Cherki ayaa igana ku soo bilaaban doonaan shaxda Manchester City xilli markii 5-1 lagu soo dhuftay tartankii Champions League Manchester City oo xitaa markaas Bernardo Silva laga bixi macna ciyaarta oo banaanka loo saaray ma ahan in red card uu qaatay balse macnaha way jilcanayeen oo sidaas camal ahaan ayaa macnaha Pep Guardiola uu go'aan uga qaatay marka caaba ama galabtan way ku soo bilaaban doonaan labadan weerar ah marka waxaan sugnaba waxa weeyaan waa finalka Carabao Cup-ka ma Arsenal seasonkeeda ugu fiicnayd waaye oo waxay qaadi doontaa 4 koobab haddii noqoto Champions League, Premier League, Carabao Cup iyo FA Cup ama Manchester City ay isku badbaadin doontaa in koobkaneeto waxan u qaado laakiin 4 koobna way sugaysaa haddii qaado way macnaha haddii qaado Premier League FA Cup-ka ama Carabao Cup ama Community Shield camal waa 4 koob ay ka dhigan tahay markaas haddaan aragno Manchester City oo koobkan ay ku guuleysanayso waxaan leenahay Arsenal wali waa jilcantihiin oo wali koobkii afaraad macnaha meeshaas ayuu ku dhumaysaa laakiin waan arki doonaa